ugu horreyn waxaan doonayaa inaan sir dul taago shaqada hay'adda dhowristayadu ay ka qabato gobolka saaxil sida aynu la wada socono hay'adda dhowristayadu waxay ka mid tahay hay'adaha ugu shaqada badan ee ka shaqeeya gobolka saaxil shaqada waxaa la bilaabaa 7:00 barka ilaa 12:00 barka haddana waxaa lagu soo noqdaa 2 ilaa iyo 4 ilaa 5 ayaa la shaqeeyaa waxay gobolka iyo qarankaba u haysaa shaqo muhiim ah waxay ka mas'uul tahay inay dadka wax kastoo badqabkooda iyo caafimaadkooda waxyeelaya ay ka qabato waxay u qaybsan tahay 2 section oo muhiim ah qaybta dekedda iyo qaybta shaybaarka qaybta dekedda shaqada ka dhacda waxa weeyaan markay qofka ganacsadaha ay alaabtiisa u keeno dekedda waxaa lagu xiraa inuu keeno mandatory documentska waajibka inuu keeno oo ay ka mid yihiin commercial documentski ama documentiyada ganacsiga sida backing listkii iyo bill of ladingkii iyo sidoo kale documentiyada la xiriiray alaabta tayadeeda sida shahaadooyinka caafimaadka certificate of health iyo shahaadooyinkii sheegaya alaabtu inay aysan feeg ahayn ama certificate of originski inta ka bacdi alaabta waxaa lagu sameeyaa gaar ahaan alaabooyinka cuntada dawada iyo cosmeticska baris ayaa lagu sameeyaa visual inspection at the same time waxaa laga qaadaa muunado ama samples ayaa laga qaadaa sampleskaas la geeyaa shaybaarka muunadaha marka shaybaarka iyada wuxuu noqonayaa inuu baas gareeyo ama uu fail garowo min qiyaaska iyo tayada shaybaarku uu ka dhiganayo benchmarkna waxa weeye heertayeedka qaranka Soomaaliland national standards tayada ay doonaynana waxay ku xusan tahay heertayeedka qaranka Soomaaliland national standards shay kasta oo la baarayana wax laga baarayo heertayeedkaas ku xusan tahay hadday tahay shayga hadday tahay cuntadii iyo dawadii iyo cosmeticii parameter kasta oo la baarayana wixii looga baahnaa wuxuu ama amountiga looga baahnaa wuxuu ku siiyay heertayeedkaas intaas markaan qodobkaas uga gudbo alaabta kaliya halka kama hadhno markay dekedda ka baxdo 3 biloodba hal mar waxaan sameynaa surveillance iyo dabagal maadaama berbera ay ku yaalaan goobaha ugu badan ee cuntooyinka lagu kaydiyo in muddo ay yaalaan alaabooyinka halka ay ku xumaan karaan waxaan sameynaa anagu taa ka duuleynaa surveillance iyo dabagal 3 biloodba hal mar ma bakharada soo jeegreynaa baris iyo sample qaadisba waan ku sameynaa qodobkaas markaan inta kaga gudbo waxaan doonayaa inaan in yartu taago waxyaabo noo qabsoomay sanadkii 2023 intii lagu jiray waxyaabo ugu muhiimsan ee aanu maanta ku faani karno waxa kamid ah in shaybaarkii uu si buuxda ugu shaqeeyay oo laga soo bilaabo bishii afraad ilaa imika uu si fuul ah shaqadiisa u wato waxyaabaha muhiimka noo qabsoomay waxa kamid ah in ganacsatada ay la qabsadeen alaabtooda la shaybaaro oo muunad laga qaado xilliyada hore waxa adkaan jirtay in ay ganacsatadu didmo ka muujin jireen alaabtooda laga qaado muunad laakiin ilaa imika si wanaagsan ay hawshaas nagu socotay oo la qabsadeen waxyaabaha muhiimka ee noo qabsoomay waxa kamid ah waxaanu gubnay oo dispose gareynay ilaa badeecad gaaraysa 10 container oo isugu jirta cunto iyo dawo alaabooyinkaas oo aanu ku soo qabanay dekedda oo muddadooda dhacsanayd ama expired ha waxyaabaha kale muhiimka ah qabsan waxa kamid ah ilaa 3 jeer inaanu sameynay surveillance iyo dabagal aan ku sameynay baadhis goobaha badeecooyinka ganacsi lagu kaydiyo ku yaala magaalada Berbera halkaas aanu inspection iyo sample taking baan ku sameynay intaas markaan ka gudbo qodobkaas waxaan doonayaa inaan fariin yar oo kooban halkaan uga diro ganacsatada wax kala soo dekedda Berbera iyo shacabka ku nool magaalada Berbera iyo guud ahaan reer Soomaaliland ganacsatada waxaan fariintan u diray waxa weeye inay si dhow ula shaqeeyaan hay'adda dhowristayada maadaama ujeedkeenu hal mid uu yahay haday tahay dawlad iyo ganacsato iyo shacab oo ah inaan dadkeena ka ilaalino wax kasto caafimaadkooda iyo badqabkooda wax yeeli kara waxaan leeyahay hay'adda dhowristayada si dhow ula shaqeeya sidoo kale u dulqaata inta ay natiijada laabku ama shaybaarku ay soo baxayso sidoo kale samples marka la qaadayana si dhow oo volunteer ula shaqeeya hawlwadeenada ka shaqeynaya sample muunad qaadista shacabka reer Berberana iyo gobolka Saaxilna waxa leeyahay idinkuna si dhow ula shaqeeya hay'adda wax kasto aad ka shaqeynana la soo socodsiiya hay'adda dhowristayada oo waxa weeyaan si dhow la shaqeeya guud ahaan reer Soomaaliland waxaan u bashaareynaya in intii hore indhahayn waxaan ku baari jirnay baaris dawlad fiscal inspection ma sameyn jirnay laakiin ilaa bishii afar ilaa imika shaybaarkii waa noo shaqeynaya wax badan oo ka shakisan insha Allah imika waynu ka shaqo bixi doonaa insha Allah
farintayda intaas baan kelmadeyda kusoo koobayaa